waa tartan kubadeed oo dhawaanahan ka socday caasimadda dalka ee Muqdisho in hablo kubadda cagta ku xamaasho ay bandhigyo kubadeed ka sameeyaan gudaha garoomada Muqdisho waa wax ku cusub oo aan dhawaanahan horey u jirin. Xalay waxa Muqdisho lagu soo gabagabeeyay tartan kooxo hablo ah u dhaxeeyay oo dhawaanahan lagu ciyaarayay gudaha magaalada Muqdisho. marka aad eegto qaabka ay u ciyaarayaan waxa ku muuqanaya hablo xirfad iyo hibo u leh kubadda kuwa oo haddii fursad la siiyo wax badan ka sameyn kara kubadda cagta Soomaaliya dhanka hablaha Soomaalida kadib burburkii waxay inta badan xoogga isugu geeyeen ka soo muuqashada kubadda kolayga taas oo ay door wacan ka qaateen dib u soo nooleynteeda. waxa xalay garoonka Tayo ee degmada Waaberi lagu soo gabagabeeyay tartanka hablaha taas oo ay ugu dambeyn hanteen Golden Girls oo gool iyo waxba kaga adkaaday dhigooda Lions. tani waxay fariin iyo dhiirigelin sports u noqonaysaa hablo badan kuwaas oo guryahooda la jooga xirfadooda kubadda cagta. marka aan ka hadalno dunida kubadda cagta hablaha waxay niyadaadu ugu horeynba soo qabanaysaa Marta oo Brazil u dhalatay taasoo ku guuleysatay 5 jeer oo ah abaalmarinta gabadha ugu wanaagsan kubadda cagta dunida. sidoo kale xusuustaadu yaanay ka bixin Abby Wambach oo Mareykanka u dhalatay taasoo lagu xushmeeyo kubadda cagta. xalayna waxay Muqdisho soo bandhigtay hablo asturan kuwaas oo si muuqata u soo bandhigay awoodooda iyo kartidooda kubadda cagta.